habeennimadii xalay magaalada Burco waxa laga daafuray hudheel cusub oo ay bulshadu ka heli doonto cuntada noocyadeeda kala duwan. Xaruntan oo lagu magac daray Balcad Fish Center and Cafeteria ayaa iskugu jirta qaybaha cafeteriga iyo cabitaanada iyo sidoo kale qaybaha cuntooyinka kala duwan. Waxaana si wada jir ah xadhiga uga jaray xogayaha Dawlada Hoose Cismaan Maxamed Shaqasmaan Nuur iyo xubno kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco iyo sidoo kale siyaasi Axmed Cigayare. Waxaana dhamaantoodba hoosta ka xariiqeen in wax badan ay ku soo kordhin doonto meheradani guud ahaanba gobolka Togdheer. Hudheelkan ama restaurant-kan yaran maanta halkan laga furay Balcad Fish Center ee inoo soo kordhiyay kalluunka macaan iyo alaabta faraha badan la kala waacdeedu badantay ilaa ay biisadu ku jirto. waxaanu u baarigaynaa waxaanu hambalyeelaynaa mulkiilaha maanta meesha hudheelkan ka furay caawa Cabdulcasiis waxaanu leenahay Ilaahay ha u barakeeyo waa u baarigaynaa waa hambalyana waa soo dhaweynaynaa xafladan iyo maamuuska sharafta leh oo lagu soo dhaweeyay mulkiilaha Cabdulcasiis oo inoo furay Balcad Fish Center oo ku taala magaalada dhexdeeda oo aragtaan siday u camiran tahay waa wax loo baahnaa weeyaan meeradan cusub waxaan u leenahay waa ducaynaynaa in Ilaahay u barakeeyo ninka ragga furtay isla markaana wuxuu leeyahay reer Burco ogaada meeradan cusub ee Balcad inta waxaan ku darayaa horta dhismaani waa shaybi waa magaalada bartikiis waxaan kaloo inta raacinayaa Balcad baa la yiraahdaa wax laga yaabo dadkii hore mooyaane dhalinyarada hore mooyaane inaan dadkan dambe ay yiraahdaan tolo Balcad xagee ka timid ama Balcad maxaa loo yiri Balcad waxa loo yiri aniga iyo xogayaha iyo rag fara badan oo Cabdi Maxamed Ciise ka mid yihiin laga weeyo halkan aan Balcad ka iibsan jirnay waa goob caan ah oo Balcad laga yaqaan meesha ku soo gareeyay oo kulliba وعفتها ما شاء الله قري مركا وعليها يبلعوا عاوة بعد واحد بده شيء كلون runtii sida looga waramay halkan Balcad magac weyn bay lahayd way awoodi kareen inay magac ayagu leeyihiin wala baxaan hadana waxay ka door bideen inay magaca qadiimka iyo meesha ku taalo ay dadka u gudbiyaan marka Balcad weeyaan Ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaanahu wa ta'aala Allah u barakeeyo in meel laga faa'iiday horena waa looga faa'iiday meel laga faa'iiday inay noqoto ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay mulkiilaha hudheelkan cusub ee Balcad Fish Restaurant Cabdulcasiis Saleebaan Baashe waxaanu bulshada u faahfaahiyay adeegyada laga heli doono hudheelkani xogayaha degmada xildhibaanada suraadiinta uqaasha odayaasha dhalinyarada dhammaan dadweynahan caawa nagala soo qayb galay xafladan furitaanka Balcad Fish Center and Cafeteria waxaan leeyahay aad baa u mahadsantiin waqtigiina qaaliga aad nasiiseen idinkoo oo nagala soo qayb galaya farxadda iyo furitaanka meeradan cusub ee Balcad Fish Center insha Allah waxaanu soo kordhinay oo aanu keenay adeegyo wanaagsan oo ay ka mid yihiin kalluunkii dalkeena oo fresh oo labada saacadood badda ka soo socdo ka sokeeya oo aanu u diyaarinay qalab iyo alaab aanu ugu talagalnay in ay iyadoo fresh dadku helo waxa kale oo kamid ah soft foodkii waxa kamid ah cafeteriadii insha Allah waxaan u haynaa macaamiishayada alaab tayo leh cunto tayo leh dhadhan leh qiimo jaban leh waxaan leenahay aad baa u mahadsantihiin meeradan casriga ee loogu magac daray Balcad Fish Restaurant ayaa rug ay bulshadu ka heli doonto cuntooyinka fudud iyo cabitaanada casriga Maxamed Xasan Diriye Maxamed Joker telefishinka caalamiga Ariel TV magaalada Burco.